annagoo taleexnaado jahaad taladii soo qaadnay 700 oo darwiish togatay neef doora sayidkayagu tii uuna yidhi tora ku heensaynay shakadaha intuu noo tabaday noogu tacab qaybi ilaahay ha tabantaabiye ducada noo tuumi wareegada rag baa waxay tawali yaan wax kaa tegayna annana tawrka qaalmaha nin iyo tulid u soo saaray sibraar caanagee loo tabcaday talax ku sii maalay tiirkii rasuulka iyo sharciga too ku wada fuulay galabtaa taxaabiyo kadlaba toobiyaha raacnay habeenkii fardaha waa u turaya taa ku sii mirannay tumbaceeda lagu qoofinayo xamaska loo taabay talaaduhu markii ay dhaceen tilalay oo reemay tixda gabay markii aan akhriyey toosan niman jiife tiraabkaygu meeshuu ka baxay la isku soo tuumi salaadii markii aan tukaday yaalka kaga teednay toga ula sameeyay dooyadii hore u tuuriyeynay intay timacan noo soo arkeen marada noo taagay annaguna jahaad kama tagnee tiinbad ugu roor tangayaal tabaada iyo gool weerarka u tooxnay tiidaanyo ololkii dhulkii taani naga qaaday tolaala ida qaylada berbera tahan la weydaari tan buglayaashiyo kuway tabaysay soo gaaray taysaha gugii oo hanqaray tirnigtii yeedhay talaxumada awrtu u xiray baqa taraarsiinay digligaanku meeshuu turqaday lagu tunsii geela tirsan maayo uunkii tirmiyo turishle ii doore turjubaanadii iyo halkaa koofi lagu toogay gaaladu waxay tacab lahayd taabnay garabtaasi maadhiin turaabtaa ka badan tuurta kaga qaadnay tukihii intaan niman u waray tuma la soo qaatay tira ahaan haba yaraadee gabay xayirku wuxuu ka mid yahay ujeedooyinka ay hal abuurada soomaalidu wax ka tiriyaan sida durtadiiba magaciisa laga dhadhansan karo waa gabay mid kale lagu xayiraayo oo badanaa habka soo socda ku soo baxa gabayaa caan ah ayaa wuxuu tiriyaa gabay tayo wanaagsan oo dad badani intay qaybaan aad loo qaadqaado gabay sidii gubatada geyiga ugu faahfaah dabadeedna dhaxalka suugaaneed ee ay ummaddu leedahay meel sare ka gala gabay inta si wacan u taabaqaada mar walba golayaasha la isugu yimaado laga mariyo oo ninkii yaqaani uu dadka wax dheeraado nin kale oo gabayaa ah marmarkii qaarkood si aan maansa curinta ragga safka hore kala heer ahayn ayaa wuxuu tiriyaa gabay kaas caanka noqday u eg oo kala mid ah dhinaca dherarka qaafiyadda iyo weliba erayada ha yeeshee xagga ujeeddada kaga duwan gabaygaas oo kale marka uu tirinayo maansayahanka wax xayiraya wuxuu adeegsadaa isla xarafkii uu midka hore ku tirsanaa si ay kiisa isugu ekaadaan ee hal abuurka magaca dheer iyo isaga isku mar loo xusuusto kolkolka qaarkoodna waxaa suuragal ah hal abuurka tirinayaa inuu isleeyahay gabay xayirka ku xumee oo ku qiimo dil midka uu gabay xayiraayo ee ay maansadiisu shaac noqotay waase haddii ay labadoodu nolol isku soo gaaraan aalaabase waa kaftan iyo qosol waxa gabay xayirka looga dan leeyahay taasna waxaa loo tagaa markii lala mariyo gabaygii hore weliba rag hore u yiqiini ay golaha joogaan gabay xayirka halka ay maadu kaga jirtaa ma aha erayada maxaa yeelay haddii uusan jacbur ahayn xagga farsamada iyo habdhismeedka waxba kagama duwana maansada caadiga ah ee ay soomaalidu madaxa u ruxdo ragga tiriyaa siday u badan yihiin waxay noqon karaan hal abuurnimada maanso qaar ka adag oo deelqaafka ka ilaalin kara sidaa darteed sababta dadka dhagaysta ka qoslisaasi waa ujeeddada waa arrinta uu gabay xayirku ka maansooday oo si walba kaga duwan tii uu gabayaagii hore wax ka tiriyey bulshaweynta soomaalidu siday rumaysan tahay labada ujeeddo ee labada maansayahan ay ka kala gabiyeen ayaa kala sarreeya oo waxaa weligeed la qabay welina loo badan yahay arrinta gabay xayirku wax ka tiriyey inay mid hoose tahay tusaale ahaan fardaha iyo geelu waa laba meesi oo ay soomaalida hore si weyn u jeclayd nin walibana uu u hawsoon jiray siduu xeryihiisa uga soo buuxin lahaa labaduba nolosha raacatadeenna ayay muddo qarniyaala tiirdhexaad u ahaayeen hodantooyada iyo saboolnimada qoysaskana waxaa laga garan jiray kolba tirada ay labadaas ka leeyihiin inta ay la eg tahay sidaa awgeed maansayahankeennii hore waxaa laga fili jiray ifka intuu ku nool yahay mar ama ka badan labadaas meesi inuu wax ka yidhaahdo su-aasha mar walba oo lala kulmo in la haybiyo ay u badnaydna waxay ahayn jirtay farda maxaad ka tiri geelsa maxaad ka tiri halkaas ayaad mooddaa gabayaa hebel hal abuurnimadiisa inay ka qiyaasi jireen oo tilmaanta iyo ammaanta labadaas meesi ay ku kala reebi jireen wax lala yaabo oo lagu qoslo waxaa haddaba ahayd labadaas inta xoolo kale la garab dhigo in la ammaano oo heesi waa halkeedee gabayo iyo geeraarra loo tiriyo sugaanteenna waxaa laga heli karaa maanse qurux badan oo rag gabyii ogaa ay ari ama dameero ku ammaaneen weliba iyada oo ay ka dhab ahayd nasiib darrase waxay noqotay maansadaas iyada ah inaan bulshadu mudankeedii marin loona qaatay gabay xayir loola dan leeyahay in alla intii maansayahana ahayd ee tirin jirtay fardaha iyo geela tixaha ammaanta ah ee loogu hagar baxay si kastaba ha ahaatee gabay xayirka ninka tiriyaa waa ila kacaanyahan ku dhiiraday inuu ka maansoodo ujeeddooyin hor leh oo aan bulshadu dhaqan ahaan u qaayibin waa hal abuur
geesinimo meel dhigtay oo aad moodo inuu ku jeesjeesaayo bulshada inta ay la tahay arrimo laga gabyi karo iyo kuwo aan laga gabyi karin inay jiraan. waxay u eg tahay inay isaga ka dhaadhacsan tahay hal abuurku inuu daw u leeyahay inuu ka maansoodo wax kasta oo dareemadiisa damqa oo tixa maanso dubaaqiisa ka soo saari kara. maxaa naloogu dirqiyayaa fardo iyo geel keliya inaynu ammaanno? maxaa qasab ka dhigay iyaga uuni tilmaanta maanso inay geyaan? oo maha ammaanin baa laleeyahay haddii aanu geel iyo fardatoona lahayn uu xoolo kale leeyahay. maxaa diidaya allaha u naxariistay sidii xabdi iidaan inaad gabay ku ammaanto dameer xilli adag kaa saaray oo intuu biyo dhaamiskii kaaga filaaday haddana masruufkii reerka ku daray? malahayga ninka gabay xayirka tirinaya waa nin su'aalaha jaadkaasa in badan isweydiiyey, dabadeedna jawaabihii bulshada uga soo noqday ku qanci waayey, markaasna go'aansaday irda cusub oo maanso inuu furo. meel hore sidaan ku soo xusay gabay xayirku wuxuu ka mid yahay ujeedooyinka la aqoonsan yahay ee maansada Soomaalida. qaybaha soo socda ee qormadaanna waxaan ku soo qaadi doonaa tusaalooyin inoo muujin kara habka ay maansayahanada Soomaalidu isu gabay xayiraan, kuwa hore iyo kuwa dambaba. tusaalaha koowaad waa tilmaan faras iyo tilmaan riyaad. jacaylka ay Soomaalidii hore fardaha u hayeen dheel kuma u iman. isku mar ayuu farasku dhowr danood u qumin jiray oo qalab lagu dagaal galo mar buu u ahaa, marna gaadiid buu u ahaa, marna wax lagu xaragoodo oo shirarka waaweyn lagu tago ayuu u ahaa. haddii ay raacatadeennii hore xoolaha kala dhici jireen, gaar ahaan geela, wixii badanaa suuragelin jiray fardaha ayay ahaayeen. kuwa wax laga dhacay qudhowdu kolba wixii laga qaado wixii ay ku soo dhacsan jireen isla fardaha ayuunbay ahaayeen. sidaa darteed lahaanshaha farduhu waxay ahayd wax lama huraan u ah nin kasta oo dani ka hayso geelal lasoo moola duugay inuu ka saami qaato, dabadeedna ka dhacsado hadba colkii ay hawo ka soo gasho. waxaa la yidhi abwaan Soomaaliyeed oo raacatadeennii hore ka mid ahaa ayaa wiil uu dhalay xoola kala taliyey, dabadeedna ku yidhi haddaad xoola dooni xamara ag joog, haddaad xila dooni xamara ag joog, haddaad xaraga dooni xamara ag joog. talada uu siiyey waxay tahay inuu ku mintido siduu farda ku taabi lahaa marba hadduu iyaga wax walba ku heli karo. xamarana waa geeye magaceed, wuxuuse abwaanku ula jeedaa farda oo idin. labada tixood ee tusaale ahaanta aanu koldhow u soo qaadan doonno lama yaqaan raggii tiriyey iyo xilligii la tiriyey toona, waxaase la malayn karaa sababtii ay ku soo baxeen. sidaan filaayo dhowr xilli oo aan dhulka cirka looga iman ayaa beryahaas la soo maray. jiilaallo aan gu iyo dayrtoonihii u dhaxaynin ayaa meelo geyiga Soomaalida ka mid ah ku raagay. geedi iyo kaynaan aan kala fogeyn ayaa kolba dhinac loo guuray. daaqaa yaraaday. aroorka laba guulka ah iyo hayaanka joogtada ah ayaa uga sii daray xoolihii ay reer miyigu shafacsanayeen ee baadka iyo biyaha ay mar walba la goobayeen. wax quman oo ay ka gooyaan markii dhulkii ka waayeen, xoolihii oo idil baa weyd la kici waayey, oo xataa geelii adduunyada ugu xoogga iyo adkaysiga badnaa xeryihii xalay loo soo dheelmay qaankiisii waa berigii ka dareeri waa. iyadoo ay sidaa tahay ayaa malahayga ninka gabayga koowaad tiriyey wuxuu u joogi waayey xoolayarida iyo nacafi xumada jiilaalada isugu xigsaday ay ku jarabeen. habeenno dhowra hadduu naftiisa la tashaday ayuu ka badin waayey inuu duulo oo siduu dhaaxda yeeli jiray geel gacmaha ka soo buuxsado, caynkaana isaga iyo reerkiisu ay abaaraha kaga baxaan. golihii fardaha intuu ku dhaqaaqay ayuu isa mariyey bal inuu ka helo faras ama geeyo uu garabta la carraabo. wuxuu soo qabsaday sango weyd bastiis la ah, haddii markaas ka hor uu 2 jeer marna keligii ku duulay marna uu col ku raacay. waa leefleef oo geyiga oo idil waa laga yaqaan, maxayse kuugu taal? leefleefkii hadda wax la qaybsan jiray ma wuu maanta yahay. waxa uu hoosta ka haraamay bila ka hor nimankii ku taliyey beeshoodu inay waqooyi u guurto. wuxuu rumaysnaa haddii geedigaas dheer xoolaha laga dayn lahaa oo gaar ahaan fardaha iyo nugulka kale agagaarka ceelasha aan laga fogeeyeen inay sida tandhaami lahaayeen. intuu fardihii kale ka soo dhex saaray oo dhabarka iyo guudka u saraaxay ayuu eebbaweyne baryo ula jeestay. oo tolow muxuu ka baryey? faras lagu duulo ama wax lagu soo dhaco maanta leefleef uma muuqdo eebbow igu garab gal oo geel igu soo sii ayuu ku ducaysanaya. wuxuu yidhi waa kaa wanaaggii ka ba'ay waraqi leefleefe, waqooyi u kicii bay farduhu nagaga wiiqmeenee wadda geel ha qaadaan lahaa, wagacda jiilaale eebbow wax igu sii dushaa waran la moodaayay. gabayaa kale oo malahayga ay kaa hore isku degmo ahaayeen ayna muuqato hayaankii waqooyi inay ku wada jireen asi aan isagu farda lahayn ayaa maqlay tixdaa hore ee uu ninkii lahaa leefleef u tiriyey. kolkaas buu ku tashaday inuu gabay xayiro. qudhiisa abaaruhu saameeye, geel iyo fardase kama saamayn.
waxay ka kala dhantaaleen arigii uu dhaqan jiray oo intii u hadhay ay caato la dirgan la adahay. abaarta leefleef iyo xoolaha kalaba asiibtay hadday tahay tugayiga wada saabatay, muxuu sida ninkaas oo kale isna arigiisa ugu calaacali waayey? gabay xayir oo maalintaa tiriyey oo kaa leefleef aad ugu eg ayuu ku yidhi: waa kaa wanaaggii ka ba'ay waxarahaygii, waqooyi u kici bayriyuhu nagaga wiiqmeene u wanjeeci geed baan lahaa, wagacda jiilaale eebbow wax igu sii garaa weyd la taagdaran. garaha ku lahaadeen ama yaani ku lahaane, waxaan shaki iiga jirin labadaa tixood soomaalidii loo wada mariyey ee xilliyadaas joogtay inay midda dambe ku qosleen aadna ugu maadaysteen. tusaalaha labaad waa ammaan geel iyo ammaan wax kale. sanooyinkii afartameeyihii qarnigan kadib soomaali badani markay reer magaalowday ee daaraha iyo nolosha deggan loo bartay, ayaa waxaa si xoogla loo dareemay isbeddelkii dhaqanka ee bulshadeenna sida degdega ah ugu soconayay. raacato rag iyo dumarba leh ayaa magaalooyinkii soo degmaystay. askartii gumaysiga ayaa la qortay, xafiisyadii maamulada ayaa shaqooyin laga helay, ganacsi madax bannaanna waa la bilaabay. rag badan ayaa durbadiiba raaxada nagaanshaha ku naalooday oo raaxanraadkii miyiga iyo qarfa wareegiiba ka raystay. ha yeeshee markii la garab dhigo intii weli reer miyiga ahayd, tiradii reer magaalowday aad bay u yaray. yeelkeede waxaa bilaabatay dood xilligeedii aad xiise u lahayd oo ka dhex socon jirtay ragga intooda habka noloshii miyigu uu weli la fiicnaa iyo kuwii deganaanshaha iyo daaruhu wax walba oo kale ay kala wanaagsanaayeen. dooddaas iyada ah raggii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa qaar maansoorayaal ah oo inkastoo ay laba fikradood u kala safnaayeen, haddana magaalooyinka wada deganaa. miyiga iyo noloshiisa geela ayaa astaan u ahaa, magaaladana daaraha ayaa astaan u ahayd. waana badanaa labada la kala ammaanayay baryahaas abtahanada soomaalidu ay labadaa hab nololeed u kala hiilinayeen. dooddaas oo waqooyiga u badnayd markaynu midhacsanno, geela iyo nolosha miyiga raggii daafici jiray ee qareenka u ahaa waxaa ugu cod dheeraa allaha u naxariistay gabayaagii abwaankana ahaa ee la odhan jiray cumar xuseen gorse, laguna naynaasi jiray cumar australia. isagu qof ahaan wuxuu ahaa nin sidii loo badnaa markiisii hore miyiga ku barbaaray, dabadeedna askartii ingiriiska qortay oo dagaalkii koowaad tangagii ka galay. 1928 ku jiray qoysas Soomaaliyeed oo qudhoodu qayb ka ahaa ummado kale oo dunida saddexaad laga kala keenay. hay-adda dowladda Jarmalka ka tirsanina ay magaalada Hamburg u geeyeen si carwo ahaanna loogu daawado, dhaqan ahaanna cilmi baaris loogu sameeyo. asal ahaan wuxuu ahaa reer Berbera. waayihii dambe si Hargeysa ayuu u badnaa, halkaas oo qaybtii hore ee 70-aadkii qarnigan uu ku geeriyooday. sanooyinkii 60-meeyihii iyo bilowga 70-aadkiiba dadkii raadiga Hargeysa dhagaysan jiray waxay cumar xuseen ku xusuusan karaan barnaamij dhaqameedkii sida weyn loo jeclaa ee isaga iyo saaxiibkiisa allaha u naxariistay maxamed xaaji xuseen sheeke xariir ay isku waraysan jireen oo barayaal dhab u layliyeen sidoodii ay hiddaha wanaagsan ee soomaalida tarantaaliga ku baahin jireen. doodii labadaa hab nololeed loogu kala hiilinayay wuxuu cumar aad isugu howlay si walba uu ku muujin karo geelu inuu wax walba ka qaalisan yahay, nolol ahaanna dhaqashadiisu ay ka fiican tahay magaalo degidda iyo dheefsashada daaraha. gabay aad u dheer oo aad u macaan si wacanna wax inooga bari karaa nolol maalmeedka geela iyo geeltiraha ayuu baryahaas cumar xuseen tiriyey. waa gabay kuwo kale oo ka soo horjeeda ay garab dhigeen maansayahanadii daaraha iyo nolosha magaalada door bidaayey. maansayahanadii uu hore muuse aadankii reer Hargeysa uu ugu magaca dheeraa waxtarkii bulshadu aqoonsanayd ee geelana ku gacan sayray. inta aanu ammaanta iyo tilmaanta geela hoos ugu daadegin, wuxuu bilowga gabaygiisa cumar ku sheegayaa ariga iyo loodu inay yihiin dumar iyo carruur uuni wax ay xoola moodaane aanay ahayn wax uu nin weyn u xisho. wuxuu ku celcelinayaa oo gabaygaba dhextaal uga dhigayaa meesiga dhaqashada mudan ee in lagu hawshooda gayaa inuu geela uun yahay. arigu waa dhalaan iyo haween, dhamaladoodii iyo dhaldhalaalka iyo xiirtu waa dhuubka karameed ee dhaqaalaha haweenkiiyo guryaha, siima dhaafsana ee lo'da dhayda laga maalayo iyo dhiiqda iyo xoorku u dhunkay biyaha kula jirtiyo dharabka weeyaane, mar hadday abaaruhu dhacaan dhimatay geesleeya ragga laxaha sii dhowrayow dhaqasha waa geele. dhibaatiya adoo gaajo qaba dhaxanta jiilaalka dhowr caano laga soo lisay oo yaro dhanaanaaday mid dhadhamiyey waa garanayaa, dhulay qaboojeene goortaa dhantaabaa jirkaba dhididku qooyaaye ragga laxaha sii dhowrayow dhaqasha waa geele.
markaasuu u gelayaa si aqooni ka muuqatana u tilmaamayaa geelii oo bil iyo ka badan hawdka dhacaalanayay, geelii oo inta badi u rimay wada dhaadan farowgiina ku dhigay, geelii oo la arooriyey oo inta ceelkii la geeyey la shubaayo, geelii oo barbaaro turuqya waaweyne ay biyaha dhanaha ah hagarli'i u siinayaan, oo irmaankiisa ramadkiisa dhowaanta dhalay iyo baarqabkiisa qooqa la golongolay ay u budinayaan. gabayga qaybtiisan aan kollow warin doono ayuu si qurux badan ugu tilmaamayaa sidii koox dhaantada dhab u taqaan dhallinyarada kaalinka taagane habka ay heesta isugu jiibinayaan, iyo geelii oo inta cabbay oo rakaatay wabxay dabadeedna doobkayaashii lagu dawdabaayo oo marti iyo mudanaba ay ka haagayaan. ugu dambaysta wuxuu tuducaan ku soo xirayaa meedisyo aad u macaan oo noqday halhays markhaati laga dhigto mar walba oo sheeko geel laisla soo qaado. waa meedisyada caanka noqday ee uu inagu baraayo habeenka uu geelu guul wabaxa yahay, caanaha laga maalaa inay yaabab leeyihiin oo qofkii doobi ka xaabsadaa ay ka soo saari karaan qodxo wixii jirkiisa carruurnimadii ku muday oo siday ugu jireen la iskaba iloobay iskana la xawbeelay. wuxuu yidhi heesteeda niman bow dhignaa dhow la'aan jiray ee dhallinyaro hormada loo dhigoo timaha dhoobaystay sida duulka dhaantada tumay ugu dhawaaqaane dhufashada harowgaalada la isu dhiibaaye markay dheregto yaa meel cidlaa dhowr la tu'iyaaye sida dhaan haraad loo qabay ugu dhammaadaane markaasaa dhulkuu joogi jiray lagu dhaqaajaayay. xilyo guulkii hore loo dhigay bay dhag uga siiyaane waxaa dhaba habeenkaa ninkii dhama galxoodkeeda dhallaannimo qodxii kugu mudaa kaaga soo dhaca ragga laxaha sii dhowrayow dhaqasha waa geelib. wuxuu ammaano iyo wuxuu si walba u tilmaamaba cumar waa ninkii gaaray inuu ku dhiirado oo yidhaahdo nin Soomaali ah oo aan geel lahayn waa sabool wax laga dhaxla aanay gacan ugu jirin xataa hadduu lacag dheeman iyo daaro magaalaba ka buuxo. inkastoo adduun badan dhigto iyo dheeman iyo daaro, inkastoo dhar wada suufa iyo dhag iyo laas qaato dhaxal male nin Soomaali oo dhaqanin koreeyay. dhaxal ha lahaabo ama yaanu lahaanay ujeedadaydu ma ahayn gabaygaas quruxda badan ee geel iyo ammaantii ku fogaaday inaan ka faaloodee waxay ahayd inaan tusaaleeyo sidii isaga qudhiisa loo gabay xayiray. nin aan magaciisu soo gaarin oo aan filaayo Hargeysa inuu ku lahaan jiray dadweynaha danleyda ahi makhaayadaha ay wax ka cunaan middood ayaa tiriyey gabay xayir uu kii Cumar u ekaysiiyey. wax lala yaabo ma ahayn ninkaasi inuu tiriyo gabay kale oo lo amaba ari intuu ku ammaano uu gabayga Cumar ku dhereeriyo amaba uu ku gabay xayiro. arrinta kale ee laga fili karay waxay ahayd daaraha iyo waxtarkooda inuu ammaano, sidaasna uu Cumar ku gabay xayiro. intaasba ma yeeline meel aan laga malaynayn ayuu inaga soo baxay. caanaha geeli wabax guulka ahaa ee uu Cumar yaababka u sheegay ayuu garab dhigay cunno isaga agtiisa tiil oo caano geel in lagu dhereeriyaa bulshadii xilligaa joogtay ayuu arki kartay uun been iyo war aan mudac ka daabnay. gabaygii Cumar oo baryahaa si wanaagsan loogu sheekaysto meelisyo ka mid ah isaga oo ku luuqaynaya ayuu malahayga ninkaasi wuxuu galay kushiinka makhaayadiisa. 2 digsi oo waaweyn oo maraq karaankal iyo lafa yaryar ka buuxaan ayaa u karsamaya oo kol dhow dabka laga dhigi doonaa. aroor hore intuu ka laho ayuu tagaa kawaanada iyo meelaha kale oo maalin walba xoolaha lagu qabo, markaasuu ka soo urursadaa hilibka xubnihiisa raqiiska ah ee ragga Soomaalidu ay ka xaagan yihiin sida karaaciinta ama manjaha, madaxa iyo cadadka kale ee xaabka ku tirsan. waxaas ayuu digsi waaweyn ku wada kariyaa oo waqti aan gaabnayn dabka qaxmaaya ku dul iloobaa ilaa uu soo baxo maraq dux iyo dufan badan oo hadhow si gacmaha looga gooyaa ay dhib leedahay. maraqaas cadadka yaryar ee hilibka ahi ku dhex jiraan oo dhir adari uu ku udgiyey ayuu rooti ku siiyaa oo duhurkii iyo fiidkiiba danleyda aan xaasaska iyo guryaha lahayn ka iibiya, lacag yarna kaga qaataa. waa cunno ay iyaguna jecel yihiin oo ay weliba kaga mahad sheegtaan sida ay socodka caloosha wax uga tarto. gabaygii Cumar isaga oo weli ku luuqaynaya 2 digsi oo bislaadayna dabka ka qaadaya ayaa waxaa ku soo dhacday cunnadan uu kariyo ee uu dadweynaha ka iibiyaa inaysan caanaha geela waxba u ogeyn, sidaa darteedna in sidooda loo ammaano ay mudan tahay. kolkaas buu tiriyey gabay xayirkan gaaban oo qaar ka mid a meelisyadii Cumar uu dhab ugu ekaysiiyey, gadaalkiina maad iyo qosol miiga noqday. wuxuu yidhi dhuuxaa karaaciinta iyo dhiraha aan qoosho nin dhadhamiyey waa garanayaa, dhulay qaboojeene dhubuq markaad ka siiso yaa jirkaba dhidid ku qooyaaye, waxa dhaba aroortii haddii roodhi lagu dhuuqo dhalaannimo quskii kugu garaa kaaga soo dhacay. maadda iyo qosolka uu taray ka sokow waxaan malaynayaa gabay xayirkaasu ii dhex culus inuu noqday oo faa'iido ganacsi ninkii tiriyey u yeeshay markii la maqlayna meel la kala fadhiisto makhaayadiisii laga waayey.
tusaalaha saddexaad waa tilmaan dagaal iyo tilmaan tumasho. hal abuuro waaweyn oo taariikhda maansada Soomaalida magacyo aan la halmaamin karin ku leh ayaa waa hore iyo waa dambaba la gabay xayiray. Sayid Maxamed Cabdille, Qowdan Ducaale, Ismaaciil Mire, Cali Jaamac Haabiil iyo qaar kale oo la aynay ahaa ayaa gabayadoodii loo bareeray oo si loogu maadsado kuwa loo ekeysiiyey oo marmarka qaarkood anshax darro miiran ah la feerdhiga. qaybtan dambe ee qarnigan 20aad ee maansada ugu caansan ee la gabay xayiray malahayga waa gabay tilmaameedkii uu tidiyey allaha u naxariistay darwiishkii mujaahidka iyo gabayaagaba isku marka ahaa ee la oran jiray Ismaaciil Mire. gabay xayirkase inta aanan u gudbin bal horta si kooban aan uga faallooda Ismaaciil qudhiisa tixdii laga gabay xayiray sababtii uu u tidiyey iyo fariintii ay xambaarsanayd. marka hore lama mooga Ismaaciil Mire inuu ka mid ahaa ammaanduulayaashii Sayid Maxamed kuwii ugu mintidsanaa oo gelina allaha ka dhigay toosnaanta halgankii daraawiishta aan waana madmadow ka gelin. wuxuu ku jiray kumayaalkii uu sayidku tababaray ee uu jacaylka jahaadka ku rabeeyey. intaas waxaad ugu dartaa inuu ahaa hal abuur hogga maanso si fudud ugu aroori karay oo sidii awr hayin ah erayada af Soomaaliga ugu adeegsan jiray. tu ka mid ah goobihii ugu waaweynaa ee daraawiishta iyo Ingiriisku ay isaga hor yimaadeen ayuu si faahfaahsan tixdiisa aan soo bandhigi doono Ismaaciil ugu tilmaamaya. sababtii ay ku timidna sidan bay ahayd. Khaliif Sheekh Cabdille oo ay sayidka walaal ahaayeen maqadina ka ahaa xarunta laanteedii Wabi Shabeelle ayaa 1913 taleex u soo dhiibay awr badan oo sida hub rasaas iyo dhar. iyada oo doollar la soo marinayo ayaa waxaa arkay niman Soomaali ah oo ay daraawiishta col ahaayeen dhanka Ingiriiskana ka soo jeeday. intay ordeen ayay burca tageen oo ka wargeeyeen dabadeedna waxaa lagu soo bixiyey col Soomaali ah oo Ingiriisku soo hubeeyey. awrtii daraawiisheed oo meesha beer la yiraahdo maraysa ayaa colkii halkaa ku dhacay waxay sidayna ku taabay raggii wadayna wax la laayay iyo wax la dhaawacay ayaa laga dhigay. firxadkii kolkii ay taleex tageen ayaa sayidkii qalqaalay col daraawiish ah oo aarsidoon ah. nimankii safarka dhacay xoolahoodii ayaa colkaasi moora duubay kuwaas oo Ingiriiskii burca joogay iyaguna qayla gees wala dhexdhacay. koofil col uu madax u yahay oo Soomaali iyo cadaanba leh iyo ciidankii daraawiisheed oo xoolihii wata ayaa goor subaxa meesha dulmadooba la yiraahdo dagaal xumay ku dhex maray. goobtaas oo ruuga la baxday daraawiish baa heshay koofilna halkaa ayaa lagu dilay. markii taleex la yimid ayaa Sayid Maxamed Ismaaciil Mire ku amray inuu ka sheekeeyo sidii uu dagaalku u dhacay wixii ay xoolo heleen iyo intii ay maqnaayeen wixii la soo gudboonaaday. markaasuu ku bilaabay qalqaaladii hore ee colka iyo ambabixiisii dardaarankii sayidka rasaastii uu u qaybiyey iyo ducadii uu ku saaray jiscinkoodii wuxuu ahaa iyo habeenkii koowaad fardaha siday u nasiyeen ee ay u mireen. aroor hore colkii oo weli hurda siduu u dhex qaaday oo uu gabayga ugu toosiyey. ulasan markay gaareen sida ay ilaalada u dirsadeen ilaaladii oo soo noqotay korkay cadowgii meel ku soo hubsadeen sidii loo dagaal galay siduu cadowgu berbere ugu qayla dirsaday tilmaanta sidii loo direeray dilka ammaanduulihii colka cadowga iyo maantaa wixii hub ahaa ee ay gacanta ku dhigeen. wuxuu yidhi Ismaaciil annagoo taleexnaal jahaad taladii soo qaadnay 700 oo darwiish togatay neef doora sayidkayagu tii uuna yidhi tora ku heensaynay shakadaha intuu noo tabaday noogu tacab qaybi ilaahay ha tabantaabiye ducada noo tuumi wareegada rag baa waxay tawali yaan wax kaa tegin annana tawlka qaalmaha nin iyo tulud u soo saaray. sibraar caanagee loo tabcaday talax ku sii maalay tiirkii rasuulka iyo sharciga too ku wada fuulay galabtaa taxaabiyo kadlaba toobiyaha raacnay habeenkii fardaha waa u turaya taa ku sii mirannay tumbaciida lagu qoofilay oo xamashka loo taabay talaaduhu markii ay dhaceen tilalay oo reemay tixda gabay markii aan akhriyey toosan niman jiifi tiraabkaygu meeshuu ka baxay la isku soo tuumi. salaadii markii aan tukaday yaalka kaga teednay toga ula sameeyay dooyadii hore u tuuriyeynay intay timacan noo soo arkeen marada noo taagay annaguna jahaad kama tagnee tiinbad ugu roor. tangayaal tabaaday iyo gool weerarka u tooxnay tiidaanya ololkii dhulkii taani naga qaaday tolaalayda qaylada berbera tahan la weydaari tan buglayaashiyo kuway tabaysay soo gaaray kaysaha gugii oo hanqaray tiinigtii yeedhay talaxumada awrtu u xiray baqa taraarsiinay gigligaanku meeshuu turqaday lagu tunsii geela tirsan maayo uunkii tirmiyo turishle ii doore turjubaanadii iyo halkaa koofi lagu toogay. gaaladu waxay tacab lahayd taabna garabtaasi maadhiin turaabtaa ka badan tuurta kaga qaadnay tukihii intaan niman u waray tuma la soo qaatay. wuxuu ku xijiyey geelii ay wateen siday ugu mintideen ee markay goobtii ku soo libaysteen isagii oo aan turudi ka maqnayn ay u soo kaxaysteen.
habeenadii shanta ahaa ee ay gurigii dariiqo iyo taleex usoo socdeen habeenba meeshii ay ku hoydeen tirada geelii xarunta la keenay iyo saami wuxuu isagu ka helay oo hashii gabay ku jirto wuxuu yidhi gabagaba u tooxnoo kufriga maara kaga teernay tafwareeman maynina intaan tubay ku aynshaari garabtaa caraabada ku timi turuga buuhoodle habeenkaa ninkii tabar lahaa taraantaree gaalka habeen kale tagaabeeye iyo tu'inay haylaawe habeen kale taxaashay nugaal godan u tuuriyeynay habeen kalena tuuraha caduurtoolin kaga maalay habeen kale dariiqada tubnoo toosan lagu qaybsay 10 gool tabaadiga dhigi iyo 10 unungooyo iyo 10 tiftii horar remotaani lagu qooqshay iyo 10 abeer towlan oo tikhilka qaalmooda iyo 10 irmaano aniga la igu taageeray iyo taan eriyoon jiray markay 10 tahee joogto been laguma tooqiyo afaan taabud noqonayna intaa xarunta waa tubay xaq waa lagu tanaadaayay amaan duulayaashii maansayahanada ahaa ee Soomaalida waxa caado u ahayd duulaamada kadib inay gabayadooda libkufaanka ah ku xusaan faraskii ay dirirta ku galeen oo ay ku amaanaan Ismaaciil Mirana hidahaas kama ilduufin intii uu darwiishka ahaa fardihii lagu bartay waxaa kamid ahaa ina qooqan looshane qaabil tuure iyo qadaw caleemeed midkan uu maanta ku soo guuleystay waa tuure waa xamarka uu ku tilmaamayo dunida oo idin magaciisa in laga hayo oo reero lagu galay aanay rajo ka qabi karin geel dambe oo ay caana ka maalaan wuxuu yidhi warka tuura waa laga hayaa tan iyo iimeeye suldaan ruuna loo tebi inuu tuuradii gubay taltallaabsigiisiyo kabtiga taba kalow dheere tafantoofka gaalku u dilay waa tixgeliyaaye tulidna uma godlaan reeruhu towl ka saanyadeeye anigana tisbay galay intaan col ugu taagnaaye tima soohan low ee bahay kuma tabaaleeyin abbaaraha sanooyinkii ugu horreeyey lixdanaadkii qarnigan 50 sano hadduu tirsanaa kadib ayaa gabayga Ismaaciil ee caanka noqday la gabay xayiray xilligaasi wuxuu ku beegnaa markii dalweynaha Soomaalida uu jaadku ku baahay ee awal waa la iska cuni jiray uune ay dhalinyaro badan hab tumasho u adeegsadeen waa xilligii habka geerishka la soo rogay ee magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka wada furmeen aqalada sida quruxda badan u goglan ee gelinka dambe markii shaqada laga soo baxo oo la qadeeyo ay ragga inta qayisha u caraabi jireen ilaa habeen barkana iyagoo wehel haysta ay ku badjin jireen waa xilligii raaxasiinta iyo soo dhaweynta raggaasi uu dumar aan yareen u noqday il dhaqaale oo ay maalinta oo idin si buuxda uga xoogsadaan waana xilligii isdhexgalka laboodka iyo dhadigoodka aan isqabin ay bulshadu dulqaadka dheeraadka ah u yeelatay waa xilligii waayeelka iyo aqoon-yahanada diinta islaamku ay dhaqankaas cusub aad uga soo horjeesteen hase ahaatee inay wax ka bedelaan ay ku guulaysan kari waayeen xilligaas isaga ah ayaa gabayga Ismaaciil Mira loo soo dhigtay dhaqankii xilligaas tix ku saabsan oo tilmaan tumasho ah ayaa waxaa garab dhigay gabayaa Allah u naxariistay la oran jiray Cabdisalaan Xaaji Aadan oo reer Burco ahaa Cabdisalaan wuxuu kamid ahaa macallimiintii dalka kuwii ugu horeeyay wuxuuna muddo wax ka dhigay dugsigii tababarka barayaasha ee markii hore inta loo yaqeen gadaalkiisa la foole loo bixiyay sanooyinkii 70aadkii qarnigan dhamaadka ah ayuu dibadda u baxay wuxuuna shaqo ka helay jamciyadda quruumaha xarunteeda ku taal magaalada New York halka ayuu ku geeriyooday waxaase la keenay laguna aasay magaalada Xamar qiyaasta 1978 gabay xayirkiisa soo socda sida aynu ka ogaan doono wuxuu ahaa gabayaa aad ugu xeel dheer maansada dabacsan ee reer magaalka maansada kaftanka iyo maaweelada ku wanaagsan dhowr jeer ayuu Sayd Maxamed Qudhiisa gabay xayiray oo gabayadiisii kuwa aan laga aqoon tiriyay uu waliba isagii ku nabay intii maqashayna dabadeed laga dhaadhicin waayay inaan sayidku tirinay Cabdisalaan oo isu ekaysiinaya uu tiriyay gabaygiisana sidaan meel hore ku soo xusay waa tilmaan tumasho halkii uu kii Ismaaciil Mira tilmaan dagaal ka ahaa qaafiyad ahaan waa isku mid oo labaduba xarafka taada ah ayay ku wada tirsan yihiin erayada uu Cabdisalaan adeegsanayaana badanaa waa isla kuwii Ismaaciil taasina waxay kamid tahay tilmaamaha gabay xayirka wanaagsan lagu yaqaan erayada ka sokow tuduc buu Cabdisalaan garab dhigay colkii uu Ismaaciil tilmaamay oo 7 uu ku sheegay waxaa laga qalqaaliyay taleex Cabdisalaan iyo saaxiibadiisii 7 ahaana toga herar oo hargeysa ah ayay ku sugnaayeen markii ay isla soo qaadeen qabanqaabada barnaamijka maalinta gelinkeeda dambe Ismaaciil iyo Daraawishi meeshii ay fardaha kaga duuleen Cabdisalaan iyo saaxiibadiis taxi bay kaga dhaceen kaas oo goobta dagaalka halkeedii iyaga suuqa qaadka ula cararay Ismaaciil iyo Daraawishi halkii ay cadawga ilaalada uga dirsadeen Cabdisalaan iyo saaxiibadiis waxay dirsadeen laba iyaga kamid ah oo intooda kale intay qaadka ku maqan tahay u sii doora aqalkii ay maalinta fariisan lahaayeen aqalkii ay ugu dambaystii tageen shaayfada lacagtii loo yaqeen ee ay bixiyeen
agabkii khayraadda lagama maarmaanka u ahaa ee loo sii diyaariyey alaab wixii gudaha aqalka lagu sharaxay iyo kaftankii iyaga dhexdooda ka dhacay ayuu ku bilaabay wuxuu yidhi duhurkii toggaa herar haddaad qada ka soo tuurto hurdo laguma taamee naftaa lala tacaalaaye anigiiyo 7 aan ku jiray tumasho soo qaadna rag tabaabulshuu leeyahay wax istusaalayna 2 tubaha sii kala cayima hore u tuuriyayna tagsi lagama maarmeen nin wada suuqa nagu tooci tago jaale qaadkii ka yimid tacab ku baandhayna markay 2 tobnaad noo xireen toobiyaha raacnay tilmaan quruxsantii lagu ballamay saani ugu toosnay tiftii horeba 100 jaa'ifaad taybalka u saaray barkimooyinkii teedsanaa sucul ku taageeray nin waliba halkuu soo turqaday garabka soo tiiri isagoo faraas lagu tiftiray laysu tagishaha 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 lagu tiftiray